kadib markii uu maalintii shalay soo gaaray magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal isla mar ahaantan uu booqday dadka abaaruhu sida baan u saameeyay ee ku sugan deegaanka qulshada ee gobolka Awdal ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu soo subaxdii xariga ka jaray mashaariic kala duwan oo xukuumaddiisu ka hirgelisay magaalada madaxda gobolka Awdal ee Boorame isagoo geesta kale madaxweynuhu soo kormeeray dhismaha xafiis cusub oo wasaaradda maaliyaddu ka dhisanayso magaalada Boorame أحمد محمد محمود سلاي مدحونا سومالان أي أوغورين حرقة كتشري حفيز عصوب عيدا مدى دمي باريست CID دا لوغا دحدسي صليقا دحي مقالة بورما انتا سكدي مدحونا سلاي وحاو سوكر ميري هالكا ومريد اسمها حفيز كوسارة المالية دا قوال كوضا وحنا مدحونا هالكا سيور بحيكا سيسي حفيز كوسارة المالية دا وسير كوسارة المالية دا سومالان مروسان سمع عبدي آذن حنا Soomaaliland oo ku guda jira kormeeradiisa kala duwan ayaa waxa uu dhinaca kale madaxweyne Silaanyo xariga ka jaray xafiiska wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Baandari wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo madaxweynaha uga warbixinaysay marxaladii kala duwan oo soo maray dhismaha xafiiska ayaa waxa hadalladii ka mid ahaa horumarinta Soomaaliland laga dhisay iyo tog dheer oo iyadana rehabilitation lagu sameeyay ama dib u habeyn lagu sameeyay xafiiskan qalabkii oo dhan baa u maqan ilaa kombiyuutarka waa u maqan sideed xafiis cusub oo la qalabaynaya shaqaalahoodina oo wada diyaar shaqaalihii sanadkan iyo sanadkii horena 20 way ku dhoween ilaa dhowr iyo 10 weyn ay wasaaraddu ku soo kordhisay Awdal madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo hadal kooban goobtaasi ka soo jeediyay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu xariga ka jaray laba gaari oo ah nooca gaadiidka dabdamiska oo ay soo iibsadeen shacabweynaha gobolka Awdal wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukusi iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleebaan Xagla Toosiyay ayaa iyaguna isla goobtaasi maamulka gobolka Awdal ku wareejiyay taangiyo loogu talagalay in biyaha loogu dhaamiyo dadka abaaruhu saameeyeen iyo laba ambalaas wasiirada hadal kooban goobtaasi ka soo jeediyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa wasiirka dawladda xanaanada xoolaha barigu ku maqan yahay saddexda gobol ee bariga ayuu taangiyadooda kala u qaaday iyo dawooyinkii xoolaha imankana waxaynu ku afar taangi afar riig oo aynu leenahay oo gobolada Salel iyo ku yaala Awdal ayaa bilaa taangiyaha wasaaradda biyaha ayaynu ku wareejinay afar taangi oo noocana oo min 100 foosto qaadaya oo kamida 15kii ambulance ee wasaaradda maaliyaddu u soo iibisay wasaaradda caafimaadka si ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha aad iyo aad baan wasiir Samsam ugu mahad celinayaa dadaalka xadaafka ay samaysay iyo soo iibinta ambalaasyada ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu kormeer ku soo maray isbitaalka guud ee magaalada Boorama waxaana uu madaxweynuhu dadka bukaanka ee halkaasi ku jiray ee uga bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo waxaana uu madaxweynuhu warbixin kooban ka dhageystay mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Boorama madaxweyne Silaanyo hadal kooban halkaasi ka soo jeediyay ayaa waxa uu yiri insha Allah ta'ala ilaa waxa jira dad halka caafimaadka u jiifanaya caafimaad يا الله وقبريا قول الدكتور تيجي دكتور شكل الحمبلية عادية بلا ما وقدريا إن شاء الله تعالى على وحدة اللي أوكر لك ولا أوكر ولا كل الدارية إن شاء الله تعالى هو ولا سوي شيء ولا geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa habeenkii xalay ahaa hotel raysay magaalada Boorama kula kulmay isku duwiyaasha laamaha dawladda ee gobolka Awdal iyo haweenka gobolka Awdal kulankaasi ayaa ahaa mid looga arisanayay sidii loo maarin lahaa abaaraha ka jira gobolka Awdal madaxweynaha kulankaasi hadal ka soo jeediyay ayaa waxa ay ka bariyeen abaarta Ilaahay ka qaado dadka ay saameeyeen bismillaah sharafooyinka tahay anigoo waqtiga socda inaan maanta halka tabaadno
إلهي وحنا كبرنا أوراها بحسن ممكن نقول إلهي نقص بدر إياه إلهي وحنا كبرنا وبدر خير ممكن نقص إياه إلهي وحنا كبرنا يشترك له ببلد نقص سنة دواتوي إنه ما يتوت كأنه ولا إلهي كبرنا إلهي يرفض هذه وزن السلف يوانا نوصل ويسير وحنا كبرنا قادرنا نقدر لهان waanu dhageysanay baahiyaha dalka waanu aragnay waxa u soconayna xogaan u noqono wixii taabka iyaga ah ee la gaarsiin kara waxaanu kala xariirnaa ma jirto Mustafa Caraale telefishinka caalamiga Somali News magaalada Boorama